sheekh cali cabdiraxmaan oo loo yaqaano cali mukulli kana mid ah culimada Soomaaliyeed ee Quraanka wax ku daweeya isla markaana muddo bila magaalada Ceergaabo daaweynta dadka xanuunsan ka waday ayaa isagoo sheegay inuu muddo 25 casho oo dambe halkaas ku sii sugnaan doono iyo arrimo kale wuxuu horeyn soo bandhigay xanuunada mucjisooyinka ah ee uu kala kulmay qaar ka mid ah bulshada uu daweynayay muddadii Ceergaabo ku sugnaa rag bas dumaratiin rag iyo dumar jikii misoo ay sheegay إمساتيني شغل. لا نكتب أنا حي. ما حكر نبغى يستني شغل. معاك كليتين؟ نعرفه كو. يا معان. يا معان. معان كلمة كاسي كرسين. شبغل. شبغل. أكرسان. يا سكري جاي معاك. نعرفه يا سكري جاي. إلك سكري جاي. يا. أبغى شنادة. ما تكذب بنقارك. دب دبوني بيسان. يا وريا. لا فرت بيحكي كل عرب. إيش سجني. إيش سجني واتين. كمان بحد نبغى يستني شغل. قلين بانكو سمينا. قلين بانكو سميسين. ما يقدر قلين كو سميسين. سدح جرب قليل لو سمي maxaa laga qalay wala ay sheeg xameetada waa laga saaray maxaa kale qaliin lagu sameeyay ciridka waa laga qalay barbiyadna waa laga qalay ya gabana xameetada ka xanuunsan tahay misrigaas ka dhigay yaa iska dhigaya inkaas ka dhigay barbiyadna ku yar gabadha yaa iska dhigay inkaas ka dhigay ciridka ka xanuunsan tahay gabadha ay sheeg yaa iska dhigay saddex qaliin ba ku sameeyeen maxaa kale lagu geystay sheeg أدمنا كيستان. أنا كوابورتان. حتى محاول قال لي شيء. إلا قالوا. إثيوبيا إلا جيو. ولا قالوا. هاي سنة. دبته من يواركا. رافضت به صح. sheekh cali mukulli isagoo ka hadlaya muddada uu Ceergaabo ku sii sugnaan doono iyo waliba inuu xarun cusub ka samaysan doono Ceergaabo waxa hadaladiisa ka mid ahaa ilaahiga boqorka casiiska ayaa mahad iskale quraanka inoo galiyay shifa iyo raxmad iyo naxariis Allah noo galiyay hanuun iyo hidaayad noo galiyay waxaan ku sugannahay magaalada Ceergaabo dadkiina sugay insha Allah waxaan u cudur daaranaynaa aan u sheegaynaa insha Allah bisha sagaalaad inaan halkaas soo gabagabeynay magaalada Ceergaabo laakiin baahiyaha jira iyo arrimaha jira markaan fiirinay waxaan aragnay xaaladaha meesha ka taagan markaan aragnay waxaan insha Allah door bidnay insha Allah inaan ku darno waxaan ku darnay 25 cisho 25 bisha sagaalaad ayaan xaruntana soo gabagabeyn doonaa magaalada Ceergaabo inta kalena Ceergaabo ku sii sugnaan doonaa nolosheena adduunyada iyo aakhirada Ilaahay wuxuu geliyay ma garanaysaa waa kitaabka Ilaahay weeye oo la qaato oo lagu dhaqmo oo la isku akhriyo dadkana lagu akhriyo Ilaahay baa na baray alxamdulilaahi rabbil caalamiin inta xanuunsaneed Ilaahay ku shaafiina Allah u siyaadiyo inta xanuunsanayso la xanuunsanayso Allah caafiyo magaalada waxaan rabnaa xarun weyn ka samaysano sanadka dambana waan iimaan doonaa Ilaahay idinka insha Allah waxaan rajaynaynaa xarun annaga aan leenahay inaan ka shaqeyn doono markaa kadib insha Allah Ilaahay idinka ducada nagu soo dara waxa iyaguna xaaladooda caafimaad ka warramay qaar ka mid ah bukaanadii kala duwanaa ee Ceergaabo lagu daweeyay 30 ka sanadood waxaan u wareegay dhakhtar meel aanan adduunka tagin caafimaad u tagin ma jirto xanuunaan layga baadhina male maanta maalinaan ka caafimaad weyna intaan meesha soo galay 4 cashaan joogay waan caafimaaday marba noloshaba way iskaga sabra okay halkan markaan imi markiiba waxaan dareemay caafimaad iyo hurdo wax xanuun oo hadeer aan iraahdo way hayaana ma jiraan alaaba aan dhul dhigtado aan ilaaweyna oo dukaamo aan dhigtayna wax xusuustay dhowr iyo 10 sanadood baan xanuunsanay dukaankaygii hargeysaan dukaan ku haystay waan ka soo cararay mar qora ka soo cararay shaqadii baan iska dhigay 8 sanadood hadeerto wax shaqo isku mideen waan caajisay hadaan sidaad shaqeeyna ma ba shaqeyn karin culis badan iyo maaragtay baan dareemay ma garanaysaa dhakhtar kasta waan tagay hargeysaan tagay jiray meel walba waan maray exhibition baa ku haya waxana ku haya baa la oran jiray ma garanaysaa hadda ka waran hadeer aad baan caafimaad baan dareemay intaan shifada imi meel walba waan maray exhibition baa ku haya waxana ku haya baa la oran jiray ma garanaysaa hadeer aad baan caafimaad baan dareemay intaan shifada imi hurdadii waan seexday cuntadaydii waxay noqotay caadi oo si fiican baan wax cunay caajiskii iyo culayskii saaraa iyo wixii aan dareemay Ilaahay way iga qaaday maaragtay malaanin iga xanuun badan halkan inaanu iman baan malaynaya sifada tan kulli qaybta rag insha Allah xaaladdeedii markii hore iyo hadda waa isbedel weyn baa u dhaxeeya caafimaad baan dareemay 2 sano waan xanuunsanayay shalay baan halkan ka bilaabay 2 sano ma shaqayn waan xanuunsanayay dhaqaatiir badan waa u tiigay mid walba lacag baa iga baxday shalay xilli aan ka caafimaad badnaa ma jirin halka soo galay xaaladda hudalkii aan tii waa seexdo awal ma seexan jirin ciidan bay haystay hadal hoos way barartay qaarka hoos waa iska meed buu yahay
وعيريون قلوف بان هامرن قلوف أهم بانو سعنايا ما شاء الله إلهي حنونك ويقكر قاضي أنا أقول لك أفرد عتسان مريا وحنا عندنا ناس كقوس تبان إن شاء الله آد بانو لضنا يهدر عافية تدبع ما أنت يتدبع عافيمات بدن بندريمي ما أنت عافيمات بانا واي وحي هي ما هيو shalay baan imi maantana waan imi caafimaad baan boqolka boqol mar baa lay qalay waxa markii lay qalay ka bacdi meeshii sidii bay dub noqotay markii lagu qalay meeshii markii sidii soo noqotay haya hadda laba jeer mar hargeysa saddex jeer aan sadaqaal u hargeysa mar baan tagay laba jeerna Itoobiya waa sideedii ay jaan leeyahay ka bacdi hadda anigoo mariila ayaan meeshan goobtan hadda waan kacay caafimaad alxamdulillah marka waan ku caafimaad aad baan u xanuunsan jiray muddo badan in badan dhaqaatiir aan tagin ma jirto dawadiisana kuma caafimaad jirin shifooyinka qaar xataa waan tagay wali sidaan kale ma noqon meesha waxaan imid 3 days 3 cisho waan seexday alxamdulillah aroortii xil waraan kacay salaad subax tukanaya anoo fresh soo kacay inaan yar baan leeyahay ayaan 3 cisho markaan joogay ayay igu cayaartay guriga markaan tagay waan dareemi waayay waxa igu tiri hooyo markaan kugu cayaaro waxa igu oran jirtay iga tago iga fogow maanta ma lihid marka alxamdulillah marka odaygu ila soo hadlo ama guriga isugu nimaad waan cadoon jiray waan kari jiray haddaan meel aado teleefanka uu igala soo hadlo yaa markaan laba jirado yaa markaan waan dhigi jiray alxamdulillah imanka waan la sheekaysta caadi baan ula hadlaa waan xanuunsan jiray halka madaxa leega bilaabi jiray ismaan ogaan jirin haddaan kijo ku jiro haddaan suuq maray waan dhici jiray salaad markaan isaada weysada qaado madow baa leega saari jiray waan ilaabi jiray ma sha Allah hadeerto waan ladana ugu dambeyntiina Sheekh Cali Mukulli wuxuu bulshada uga duceeyay sixiroolayaasha iyo bukaanada kale ay la ildaran yihiinba saaxiriinta Allah naga qabto insiya jimba shirkooda Allah naga qabto waxana dhiba Ilaahu naga qabo kuwana xasda Ilaahu naga qabo kuwana sixra Ilaahu naga qabo ummadda islaamka waxa dhiba Allah baabiyo إله كواس وذوقته وهذا إله ناقبه إله مسلمين تبارك وجه إله عافي استاذك وجه إله عافي قرياك وجه إله عافي عاف ما سرع تام الله نصيه